habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin ugu yaraan 7 qof ayaa la dilay kadib markii kumanyaal qof oo mudaharaadaya ay isugu soo baxeen Suudaan kuwaasi oo dalbanayay dawlad rayida wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa Suudaan qodobada kale caawana waxaa ka mid ah warbixin ayaanu idinkaga haynaa dhibaatada afduubka Nigeria iyo unuga gaarka u ah ee loo saaray la tacaalida afduubyada iyo dhaca hubaysan waa filim loogu magac daray gabadhii Muqdisho oo daraad lagu daafuray bandhiga aflaanta ee magaalada Edinburgh ee Scotland BBC-du waxay la kulantay dawaarlaha dharka u talo qaar ka mid ah xidigaha kubadda cagta ee adduunka sida Sadio Mane iyo Mo Salah iyo qodobo kale ayaanu faaqidaada ciyaaraha idinkugu haynaa kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa militariga Suudaan iyo dad dibadbaxayay ayaa qolo kale waxay ku eedeynaysaa dhimashada 7 qof oo ku nafwaayay dibadbaxyo waaweyn oo xadii ka dhacay Suudaan dawladdu waxay sheegtay in ay muujisay isxakamayn kadib markii 10,000 qof ay isugu soo baxeen iyaga oo dalbanaya in xukun rayid la sameeyo maanta 3 Meyd ayaa laga helay magaalada Omdurman ee mataanaha laha caasimadda Khartoum muuqaaladani waa kuwii ugu dambeeyay ee maanta magaalada Omdurman oo markaasi boqolaal qof ay isugu soo baxeen broodiiqda dadkii dhintay militariga xukunka haya ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jireen dad rayid ah iyo waliba ciidamada amniga dhinaca kale dhaqaatiirta raacsan dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sheegeen markaasi in 5 qof la dilay xaaladda wadanka Suudaan ayaa waxay ahayd mid aan deganayn tan iyo markii xukunka laga riday madaxweyne Umar al-Bashir xukunkiisii muddada 30 sano ah wadankaasi ka taagna dibadbaxyadii dhacay muddadaasina waxa ay ahaayeen oo kuwii axadda marka la eego kuwii ugu balaarnaa oo ay ku baaqayeen dadku in generaalada xilka ay baneeyaan waxayna ay ahaayeen kuwii markaasi ugu baaxadda badnaa Suudaan tan iyo markii 10 qof la dilay bartamihii bishii June haddaba BBC-du waxa ay markaasi ku sugnayd Khartoum waxaana ay la hadashay dadka qaybta ka ahaa dibadbaxaasi lagu raadinayay dimuqraadiyadda wiilkii Andal Salam oo 26 jir ahaa ayaa la dilay waxay sheegtay in ay sii daysay in ay qayb ka ahaato markaasi inay sii wadayso inay qayb ka ahaato dibadbaxyada taagnaa mar kale ayaan dibadbaxayaa maxaan u sameyn waayay marka ay dadku dhammeeyaan tacsida dibadbax kasta waan ka qayb qaadanayaa xabaasha ayaan ugu tegi doonaa ama xukun rayid ayaanu heli doonaa maleeshiyada Janjaweed ayaa haddaba lagu eedeeyay qasaaraha dhacay 3 bishii June iminka iyaga ayaa xukuma caasimadda Khartoum waa kan abaanduulahooda oo loo yaqaano Hemeti waxay mucaaradku u doonayaan xilli 4 sano ah oo isbeddelka lagu sameeyo tan macnaheedu waa inaad u baahan tahay waqti aad isku dhistid waqti aad wax ku burburisid waxaad u baahan tahay isbeddel nadiifin si aad maamulka kali ugu ahaatid sidii Bashiir uu 30 sanadood ahaa waxaad qorsheynaysaa inaad maamusho tan raali kama ihi wararkii ugu dambeeyay ee Suudaan waxa inoo haya wariyaha BBC-da Tommy Oladipo There is no clear word on whether these protests will continue. ma jiro warcad oo sheegaya in dibadbaxyo qorshaysan yihiin iyo sida ay u dhacayaan maalmaha soo socda laakiin waxaan filayaa carada iyo inaanay shacabku raalli ahayn inay wali muuqato Intent among the public still remains despite the military's xataa iyagoo militarigu isku dayaya inay caburin sameeyaan iyagoo xidhay internetka ciidamada ammaankana dhigay wadooyinka weli caradaasi ayaa jirta dadkuna waxa ay dalbanayaan xukun rayid ah for a civilian government to be put in place. Nigeria waxa dhibaato baan ka haysata afduubka kumanyaal Nigerian ah ay qabsatay dhibaatadaasi malaayiin dollarna waxa loo bixiyay madax furasho laakiin kooxda nabad sugidda ee ka jawaabta oo uu hogaaminayo ninka lagu naanayso askarigii sare ee Nigeria ayaa waxay dagaal kula jiraan arintaasi balse xal ma u tahay kooxdan dhibaatada afduubka Nigeria ka wada kulne Fly oo BBC-da ka tirsan ayaa fursad loo siiyay in uu arko wax qabadka unugaasi Nigeria waxa ku faafay aafada afduubka kumanaan Nigerian ayuu dhibka soo gaaray malaayiin dollarna madax furasho ayaa loo bixiyay 10 sano ka hor waxa aad loo eegan jiray shaqaalaha shidaalka balse hadda qof kasta ayaa la afduuban karaa Paul Spencer
waxaa la afduubtay iyaga oo baabuur wata oo waddo weyn maraya. gaariga ayaan ka soo degnay waxuuna nagu yiri dhulka seexda. dabcan isla xilligaa waxaan dareemay inay ii dhammaatay sababtoo ah weligay qori sidaa layguma qaban sidaa weligay layguma dhoweyn. raggan waa la garaacay waana la jirdilay. habeenkii ugu horreysay waxay noo sheegeen inay qabri leeyihiin inay halkaa ku geynayaan kadibna ku dilayaan. waxa uun la soo daayey kadib markii ay bixiyeen lacag badan oo madax furasho ah. hadda rajada ay ka qabaan in ay cadaalad helaan waxa ay ku xiran tahay nabad sugidda iyo booliska Nigeria ee ka hortaga afduubka iyo burcadda hubaysan. iyaga oo isticmaalaya xirfado duugoobay ayay haddana u suurta gashay nabad sugidda in ay soo qabtaan afduubayaashii ugu halista badnaa Nigeria qaarkood. kooxdan waxa madax u ah ku-xigeenka taliyaha booliska Abba Khayaar oo dad badan oo Nigerian ay u yaqaanaan askariga halista ah. waa muhiim in dambiilayaasha fariin loo diraa oo ah Kiari iyo dadkiisa inay kaga daba imaanayaan meel walba oo ay tagaan ma hilmaamayaan abid. waxa ugu weyn ee kooxdani sameeyeen waxa uu ahaa inay soo qabqabteen sida la sheegay xubno ka tirsan kooxda argagixisada ee Boko Haram oo qaarkood lagu eedeeyay afduubkii gabdhihii iskuuleyda ahaa ee gaarayay 276 ee laga watay degmada Jibok sanadii 2014 balse waxa su'aalo la iska weydiinayaa qaabka ay u shaqeeyaan. laakiin Nigerian badan kama warhayaan ama xitaa haddii ay ka warhayaan waxay door bidayaan inay iska indhatiraan sida IRT ay ula dhaqanto dambiyada dadka loo haysto marka ay xiran yihiin taasi oo walaac weyn nagu haysa. hay-adda dib u habeynta booliska Nigeria ayaa sheegaysa inay soo gaareen eedeymo arxandarro ah oo ku saabsan kooxdani IRT inta badan dadka Nigeria. waxaa dhici karta in muddo dheer ay qaadato in wax laga qabto arrintani oo ka dhigtay dhalinyarada qaar afduubayaal halis ah. balse hadda waxa ay dadka Nigeria aad ugu baahan yihiin ciidamo boolisa oo dib ugu soo celiya dalka ku dhaqanka sharciga. markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. ciidamada booliska iyo dad dibadbaxaya ayaa isku dhacay Hong Kong sanad gurada 22aad ee markii dhulkaasi UK ay ku wareejisay xukunka Shiinaha. qaar ka mid ah dadka banaanbaxaya ayaa isku dayay inay burburiyaan dhismaha golaha sharci dejinta. booliska ayaana isticmaalay sunta dadka ilmada ka keenta iyo ulo si ay u kala eriyaan kumanaan qof oo mudaharaadayay. madaxweyne Donald Trump ayaa difaacay go'aankiisii uu shir taariikhi ah oo aan horey loo qorsheyn uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. shalay waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo isagoo xilka haya ka gudba soodinta kadib markii Twitterka uu kaga casuumay 2 maalmood ka hor hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo markaasi uu kula kulmay soodinta. dalalka shidaalka soo saaray OPEC ayaa waxa ay ku soo kordhinayaan 9 bilood oo dheeraad ah xadeynta tirada shidaalka ay soo saaraan shir ay ku leeyihiin Vienna. arrintan waxa ujeedadu ay tahay in wax laga qabto qiimaha shidaalka ee hoos u sii dhacaya. bal markana magaalada Muqdisho. shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways ayaa maanta duulimaad waxa ay ka bilowday Soomaaliya Muqdisho iyadoo markeedii ugu horeysay ka degtay magaalada caasimadda. shirkadda diyaaradda ayaa waxa ay ka soo duushay magaalada Dooxa Qatar oo markaasi ay timid magaalada Muqdisho ay toos u timid. si kastaba ahaatee ma aha shirkaddii ugu horeysay ee caalami ah ee duulimaad toosa ku tagta Muqdisho. shirkadaha kale ee Turkish Airlines, Ethiopia Airlines iyo Kenya Airways ayaa iyaguna sidoo kale Soomaaliya ku taga duulimaadyo toosa. haddaba diyaaradaha Soomaaliya taga ee tartanka xagga ganacsiga ku jira ayaa sii kordhaya haddana ma muuqato haddaba in ay wax weyn iska bedeleen qiimaha lagu raaco diyaaradahaasi. tusaale ahaan marka aynu eegno qiimaha diyaaradaha ayaa bisha August London ilaa Muqdisho tigidhka ah waxa uu gaarayaa $1,000 ilaa $1,300 taasi oo ah amaba ku dhow 7 sano ka hor qiimihii lagu raacayay diyaaradaha magaalada Muqdisho tago. haddaba tartanka ganacsiga duulimaadyada ku soo badanaya Soomaaliya muxuu isbedel ah oo uu keeni karaa marka la eego adeegyada duulimaadyada? Bella Sheego ayaa ka waramaysa. waa shirkad kale oo ku soo biiraysa suuqa duulimaadyada Soomaaliya. Qatar Airways waxay noqonaysaa diyaaraddii afaraad oo duulimaadyo caalami ah samaysa oo ka howlgasha garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Qatar Airways oo u kala gooshtay in ka badan 160 goobood oo caalami ah ayaa qayb ka noqon doonta shirkadaha ku tartamaya duulimaadka soo kobcaya ee Soomaaliya.
soomaaliya xiriir wanaagsan ayay la leedahay dowladda qatar codsiyo badan ayaa nooga imaanayay macaamiisheenna kuwaas oo ah inaan duulimaadyo ka bilaawno soomaaliya waana sababta aan maanta halkan uga soo degannay una daahfurnay duulimaadyo toddobaadkii 3 jeer imaan doona iyo diyaaradda casriga ah ee airbus A320 3 jeer toddobaadkiiba duulimaadkan ugu horreeyay ee Qatar Airways ayaa waxay si toos ah uga soo baxday magaalada Dooxa waxayna siday 144 rakaab iyaga oo soo maray dalka Djibouti iyadoo wali xaaladda amni ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ay tahay mid taagan ayaa haddana garoonka aadan cadde waxaa 6 bilood ugu dambeeyay ka soo degay in ka badan 80,000 oo duulimaad dawladda ayaana ku dadaalaysa sidii ay u xoojin lahayd isku haleynta amniga garoonka diyaaradda Qatar Airways inta aynan imaanin sida diyaaradihii kale oo kale waxay marka hore soo dirsadaan tiimamka u xilsaaran dadka u xilsaaran amniga iyo badqabka garoomada ay soo dirsadaan dadkaasi way yimaadeen waxayna runtii ku qanceen dhammaantood in airportka Muqdisho uu ka amnigiisu ka sareeyo airportada badan adduunka inuu ka sareeyo sida la socoto labadii sano iyo barkii aan halkan joognay airportka amnigiisa aad ayuu u horumaray taas ayaana ku dhiirigelisay Qatar Airways Ethiopian Airlines iyo others inay yimaadaan Turkish Airways ayaa ahayd diyaaradii ugu horeysay ee duulimaad ka bilowda Soomaaliya iyadoo ay ku soo biireen diyaaradaha Djibouti, Ethiopia iyo Kenya oo usbuuc waliba ka sameeya duulimaadyo garoonka aadan cadde waxa ay macaamiil badan rajeynayaan in diyaaradda Qatar Airways si albaabo cusub u furi doonto duulimaadyo kale oo caalami ah waqtiga ayaa se sheegi doona bella sheego BBC ولو عداونا إنسان عاوي عالمك وفرحان محمد شمعالي بلان الحسوسية وقضى ورقة وقوة وين وإيران تطبق فيا لجود لي مركي كمنيال قف ومظاهرات يا يسوق صباحين ودك السودان كواسي ودلبنية دولة فايدة إن لصميو waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan wadanka Nigeria afduubka dhibaatooyinka ka jira halkaasi iyo unuga u gaarka ee loo saaray in la yala tacaalan afduubyada iyo dhaca hubaysan toddobaadkan aynu ka soo gudubnay dabayaaqadiisii waxaa socday bandhiga filimada Edinburgh ee Scotland filimada ugu dambeeyay ee lagu soo bandhigay waxaa kamid ahaa film la yiraahdo A Girl from Muqdisho oo macnaheedu yahay gabadhii ka timid Muqdisho waa filimkii ugu horeeyay ee abid ee Afrikaan iyo Irish oo la sameeyo waxaana ku saabsanaa qisad dhab ah oo la xiriira Ifraax Ahmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqotay dadka sida aadka ugu ololeeya sidii loo joojin lahaa xadgudubka gudniinka Aisha Afrax ayaa warbixintan nooga diyaarisay magaca filinka gabadhii Muqdisho waxa uu u muuqdaa mid sahlan hase yeeshee filinkan ayaa ah mid ka tarjumaya kartida iyo geesinimada bani'aadamka filinka waxa uu ku saabsan yahay taariikhda Ifraax Ahmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka soo qaxday dagaalada Soomaaliya nolol cusubna ka dhisanaysa dalka Ireland badana ka xanaajis reerkaagina ku dirto markaa ya I will not be silenced not now not ever not even for my family kadib markii ay dalka Ireland timid Ifraax waxa ay ogaatay saameynta baan ee gudniinka lagu sameeyay uu u geystay nolosheeda taasoo ku kaliftay inay noqoto qof u ololeeya joojinta dhaqanka gudniinka gabdhaha markay ay rabeen inay baaraan su'aasha ugu horeysay waxay ahayd
maxaa kugu dhacay yaa ku dhaawacay yaa dhibkan kuu geystay ani waxaa shooga ka noqday because anaka Soomaali haddaan ahay gudniinka wax caadi oo caadi dhaqameed dhaqankeena waa wax gabar walba lagu sameeynaa mana u maleynaynin yani in oo mataqaana adduun oo jiro oo yani aqoon u lahayn arrintaas inkastoo bulshada Ireland aysan gudin gabdhahooda haddana Ifraax waxa ay rabtay inay fahmaan waxa uu yahay gudniinka gabdhaha si wadanku u mamnuuco taasoo badbaadinaysa gabdhaha qaxootiga ah ee laga yaabo in waalidkoodu ay doonayaan inay soo gudaan caawa halkan ayaa lagu soo bandhigayaa filimka gabadhii Muqdisho iyadoo doodda ku aadan gudniinka gabdhaha ay ka socoto caalamka oo idil waxaa la filayaa in filimkan uu qayb ka noqdo wacyigelinta bulshada filimka gabadhii Muqdisho waxaa soo saartay Mary Magukian waxa aan Ifraax aadka oga helay Ifraax waa in ay aamusnaanta joojisay oo ay inta ay nooleyd fahantay quwadda ay leedahay ka hadalka marxaladda ay soo martay kaliya ma ahan si ay nafteeda ugu dhawaaqayso balse si ay u joojiso ka aamusnaanta arrin muhiim ah iyadoo isticmaalaysa sheekada nolosheeda marka laga soo tago gudniinka filimkan ayaa sidoo kale waxa uu eegayaa dhibaatooyinka ay dadka soo galootiga ah wajahaan sida luqadda oo ku adag dhaqanka iyo raashinka oo ka duwan dhaqankoodii dad aad u fara badan ayaa isugu yimid si ay filimkan u fiirsadaan filimka wuu wanaagsan yahay arrimaha uu kala hadlayayna way caddaayeen halka wax oo aan ka walwal qabay waxay ahayd in af Soomaaligu uusan fiicnaan doonin oo ay ku hadli doonin af Soomaali sax ah balse si wanaagsan ayaa loo sheegay sheekada filimka gabadhii Muqdisho waxa uu u muuqdaa mid ay ka heleen dadkii fiirsanayay balse waxa ay Ifraax rajaynaysa ayaa ah in filimkeedu uu horseedo doodii lagu soo afjari lahaa dhaqanka gudniinka gabdhaha ururka qaramada midoobay ayaa sheegaya in dad lagu qiyaasay 10 milyan oo qof aanay lahayn wadan taa micnaheedu waa in dalna uusan u aqoonsan dadkoodii dadkan ima haystaan baasaboorro iyo shahaadooyin dhalasho intuba waxa ku adkaata inay helaan waxbarasho iyo waliba shaqo jaaliyada Shona oo ku nool wadanka Kenya oo asal ahaan ka soo jeeda Zimbabwe ayaa kamid ah dadka carqaladahani ay soo wajahaan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka waramaya la kulan Peter waa 16 jir ka fakaraya mustaqbalka waxbarashadiisa shaqada iyo inuu kordhiyo xirfadiisa laakiin waxaan oo dhan arrin ayaa saameyn ku leh Peter dal ma laha Right now I'm in form 3 next year imika waxaanu ku jiraa fasalkii saddexaad ee dugsiga sare sanadka dambe waa inaanu dhammaynaa waxbarashada sare inaan haystaa shahaadada dhalashada iyo waraaqaha kaleba laakiin ma heli karo shahaadadaas dhalashada waayo la igama aqoonsan Kenya markaas waa inaan waxbarashadeeda ku dhammeeyaa fasalka saddexaad ee sare waxba kama qaban karo halkaasi ayay riyadaydii ku dhammaanaysaa jaaliyada uu ka soo jeeda Peter waxa ay ku hadlaan luqada aanad ka filaynin Nairobi inaad ku maqasho waa luqada Shona oo ka mid ah afafka lagaga hadla Zimbabwe jiilka uu ka soo jeeda ayaa Zimbabwe ka yimid 60-yadii iyaga oo fidinaya diinta Masiixiga muddo dheer kadibna midkoodna looma aqoonsana Kenyan iyo Zimbabwe Tona badiba dadka ka soo jeeda jaaliyadan waxay ka shaqeeyaan faaradaha iyadoo ay ku adkaato inay helaan shaqooyin kale iyo inay dhammaystaan waxbarashadooda maadaama oo aanay haysan aqoonsi Kenya kama bixi karaan waxaanay ka cabsi qabaan in la xidho marka aadan haysan teesaro caqabado badan ayaa ku hor yaala mararka qaarkood way adag tahay inaanu macaamiisha ka iibino alaabada waxaad heli kartaa macaamiil wanaagsan laakiin waxaad u baahan tahay teesaro waxaan doonayaa in dalkan aan ka shaqo tago laakiin way adag tahay haddii aadan haysan haddii ay dowladdu nagu caawiso inaan helno teesarooyin aad ayaan ugu farxi lahayn xitaa way adag tahay inaad suuqa aado boolisku way ku xidhi karaan oo caddayn ayay ku weydiin karaan mar ayaa jirtay oo ay boolisku baaritaan ka wadeen suuqa boorsadeedii ayaan ka tegay oo waan orday maadaama aanan haysan caddayn haddaba ilaa iminka maxaa laga qabtay caqabadan ururka midowga Afrika waxa ay sheegeen inay jinsiyadaha ka dhigayaan xuquuq qof kasta leeyahay waxa kale oo jira baasaboor la doonayo in loo sameeyo midowga Afrika tan oo qof kasta oo Afrikaan ah siin doonta jinsiyada Afrikaan ah laakiin dadka sida Peter halkani waa mid aad uga fog umana saamaxi doono inuu dhawaan ku soo noqdo dugsigiisii
bal markana waa faaqidaadii ciyaaraha waxa ay gula sugan halkan stuudiga Cusmaan Cabdi Xasan. Cusmaan, hadaan ku bilowna ciyaarihii koobka qaramada Afrika. farxan qaramada Afrika koox walba awoodoodii waa la arkay oo ciyaaraha hadda heer waxay marayaan oo koox walba ay awoodooda soo bandhigeen. hadda ciyaaraha socda oo bilowday dhowr daqiiqadood ka hor ciyaarta socota waa Namibia iyo Ivory Coast laba ayay leedahay. Koonfur Afrika iyo Morocco ciyaartooda waxay maraysaa eber caawana waxa dhici doona laba ciyaar oo kale. haddii aan dib ugu laabano kooxaha maanta dheelaya ciyaarahoodii hore, Morocco waxa ay horay u joogtay heerka isreereebka, balse Koonfur Afrika waxa ay u baahan tahay in ay caawa barbardhac ay hesho si ay horay ugu sii socoto. sidoo kale Ivory Coast ayaa Koonfur Afrika 1-0 ku garaacday toddobaad ka hor, waxaana iyadana ka soo adkaaday jimcihii Morocco. Kenya waxay is arkayaan Senegal, halka Tanzania ay la kulmayso Algeria. wararka kale ee ciyaaraha caawana waxa kamid ah weeraryahanka Manchester United Rashford ayaa heshiis cusub saxiixay kaas oo uu qaadayo mishaarkiisa ilaa $250,000 toddobaadkii. heshiiskan cusub ayaa ah in uu la sii joogo naadiga ilaa 2023 sanad kale ayaana lagu kordhin karaa heshiiskan. ciyaartooygan 21 jirka ah heshiiskiisii hore ayaa dhamaan lahaa sanadka soo socda. naadiyo badan ayaana isha ku hayay oo Yurub ah, waxaana kamid ah naadiga Barcelona. ciyaaraha tenniskana ayaa maanta waxay ka bilaabmeen kana furmeen garoonka caalamiga ee Wimbledon sanadka 2019. ninka haysta horyaalka ragga ee la yiraahdo Djokovic ayaa la ciyaaraya Philip Kohlschreiber. gabdhahana Naomi Osaka oo ah gabar reer Japan waxay la ciyaaraysaa gabadha la dhaho Yulia oo u dhalatay wadankaasi Azerbaijan. iyadoo wali uu socdo koobka qaramada qaaradda Afrika, qaybta ciyaaraha ee BBC-da waxay la kulantay dawaarlaha dhalka u tola qaar kamid ah xidigaha kubadda cagta adduunka ugu caansan sida Mo Salah, Sadio Mane iyo kuwa kale. waxa la yiraahdaa ninkaasi Mo Adas, waana ninka sameeya dharkaasi. qaar kamid ah dharka suitska uu sameeyo waxa ay gaarayaan ilaa $40,000. halkani waa Signature Bespoke England, waa halka ciyaartooyda Liverpool ka samaystaan dharka suitska, waxaana kamid ah ciyaartooyda ugu caansan qaaradda Afrika sida Sadio Mane iyo Naby Keita iyo Mo Salah. labadii ama saddexdii sane u dambaysay ciyaartooy badan ayaa noo yimi. dabcan ma ahayn nasiib, waxaan u samaynay waxay jecel yihiin, afka ayay isu gaarsiiyeen. hal ciyaartooy ayaan ku bilownay markii uu noo yimid Ian Lovren. suud ayaan u samaynay, wuxuu lahaa iigu soo dira UPS ama DHL. waxaan ku nidhi ma awoodno, waa inaan arkaa natiijada u dambaysay, waa inaan arkaa isagoo xidhan. sida Mo Adas ay uga go'an tahay waxa uu kasbaday ciyaartooy daacad u ah, waxaana kamid ah kuwaasi John Stones, Wilson, Jordan Pickford iyo ciyaartooyga qadka dhexe uga dheela reer Spain ee Fabregas. What make a good suit? Of course the cloth. It will help to create a nice suit. muxuu ka samaysan yahay suud wanaagsan? dabcan dharka suuf fiican ayaa laga samayn karaa, balse waa sida loo jaro iyo habka aad u jarto, sida ay u leeg tahay qofka iyo sida ay u soo bandhigo nolosha qofkaasi marka ay muraayadda isku eegaan. waxaan dhahaa waan u sameeyey. haddaba muxuu maskaxda ku hayaa? aan aragno haddii uu Mo toli karo suud xidig ka dhigi kara waryahan BBC-da ka tirsan. sidee bay u adag tahay in ciyaartooy laga farxiyo? waxoogaa ka fakar ah ayay u baahan tahay. maxay tahay munaasabadda? waa goormaha munaasabadda? waxay tahay qofka keliya ee aan ugu samaynay 4 maalmood. taasi waa mid gaar ah iyo adeeg degdeg ah. caadiyan 2 toddobaad ayay qaadataa. aad iyo aad way garanayaan waxay doonayaan. tartanka waan jeclahay, waa sida isku tuurtuur, waad garanaysaa. tani waa noo gaar. kani waa 24 karaad oo dahab ah. kanina waa diamond. diamondka ayaa lagu sameeyey dharka. imise ayaa halkan ka hadlaynaa? waa qiimahe. jaakada iyo midda yar waa 35,000, halka surwaalkana uu yahay 7,000. shaarka iyo taayada iyo kabahana waa dhammaystir. waxaa laga yaabaa inay tahay qiimo aad u sarreeya, cid walbana aysan goyn karin. faaqidaadda ciyaaraha ee caawana intaas ay noo joogto. dharkaasi qaaliga ayaan ku soo gabagabaynaynaa. farxan maasanid Cusmaan, intaa ayaa barnaamijkii guud ahaan uu ku dhan yahay. habeen wanaagsan daawadayaal.